ee lagaga hadlayo arrinta aad muhiim ugu ah horumarinta caafimaadka taranka bulshadeena aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin marka aynu ka hadlayno arrintan maxaan ku dhahay gudniinka gabdhaha waxa weeye arrin muddo badan iyo kumanaan sanadood bulshada reer Somaliland ay ku dhaqmaysay iyada oo kala mid ahayd bulshooyin fara badan oo caalamka guudkiisa ku nool arrintan waxa weeyaan waa arrin dhaqan oo gundheer waa arrin muddo badan dadyagu ay ku soo dhaqmayeen dad badan baynu la qabnaa sidaan soo sheegay laakiin haddana waa arrin maanta adduunka intii si badnayd ay ka gudubtay sababta ay uga gudubtayna waxa weeyaan cid walba waxay fahamtay waqti gaar ah dhibaatada ay leedahay oo gudniinku uu leeyahay waxa ay fahmeen in aanu maxaan ku dhaahday gaar ahaan dalalka islaamka ah in aanu sal iyo raad midnaba ku lahayn shariicada islaamka inuu yahay jariimad maxaan ku dhahay gabdhaha loo geysanayo qofku aakhiriya adduunka uu ku mutaysan karo ciqaab in uu waxyeelayo caafimaadkii taranka in uu dhibaato weyn ku hayo in uu nafsadii iyo maxaan ku dhahay aqliyadii iyo koritaankii jidhka iyo maskaxda qofkaba inuu dhibaato u geysan karo waxa laga yaabaa muuqaal ahaan dadku inay oran karaan markan halka leeyahay jidh iyo maxaan ku dhahay maskaxaanba dhibaato u geysan kara oo jidhka soo koon habli iska koraya iska dhaadheeraanaya ee iska maxaan ku dhahay buurbuuran ee cadcad ee waaweyn inay yiraahdaan laakiin waxa weeyaan dhibaato qarsoon oo fara badan oo intaas waa run oo jirta taas laakiin dhibaato fara badan oo qarsoon oo waxyeeleynaysa oo ka maqan jidhkooda iyo caafimaadkoodaba ayuu maxaan ku dhahay leeyahay gudniinka gabdhaha loo geystaa waxaan filayaa ama aan aad iyo aad boqolkiiba boqol ugu kalsoonahay haddii raggeenu ay arki lahaayeen jariimadaasi intay leegtahay ama ay xogogaal u noqon lahaayeen marka la samaynayo qaabka oo ay u dhacayso waxaan u malaynayaa inaan nin Somaliland u dhashay sheekh iyo shariif oday iyo dhalinyaro inaanu qofnaba maxaan ku dhahay taageereen qof walibana dumarku waxa uu saxeelay dumarku inay aad u calool adag yihiin laakiin iyagu waa muraar dilaac lahayn baan islay waxaan leeyahay mar haday arrintu sidaa tahay oo caafimaadkii uu dhibaato xoog la ku hayo oo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee khilaafiyada qoyska ka dhaxdhaca maxaan ku dhahay uu keenayo oo dhibaato guuna oo aan ilaa inta maalinta gudniinka lagu sameeyay ilaa maalinta 80 jirka tahay aan ka hadhaynin uu leeyahay oo qof kasto dumar hadii la weydiiyo ay ku tirinayso 7-8 dhibaato oo ku hayo ay ku tirinayso iyadoo noolo socoto darkayso halka socotadana 20 dhibaato iyo 7 dhibaato u geysta caafimaad darraba ay qabto oo taas xaqiiq tahay mar hadii maxaan ku iraahday hadii aad la isku xog waraysto oo aad la isku dhaadhaco khilaafaadka iyo dhibaatooyinka qoysaskeena ka dhaca qayb weyn u ka qaato waxyaabaha sirta ee ku duugan ay ka mid tahay mar hadii aynu ognahay in uu diinta islaamka shaqo aan ku lahayn dhibaatada jariimada ee loo geysanayo gabdhaha yar yar ee waxba galabsan waxa aynu leenahay gudniinka dhibaatada iyo waxyeelada leh gabdhaha reer Somaliland ha ka xoroobaan oo ha laga daayo khaasatan laba fariimood baan ayaan dirayaa labada fariimood mid waxaan dirayaa gabadh kasta oo hooyo inaan dhashay gabadh kasta oo hooyo inaan dhashay inay ninteeda ka daysa dhibaatadaas iyadoo eegayso xishmaynaysa xaq dhowraysa shariicada islaamku waxay qabtaa ma doonayna inagu inaynu dhahno dhaqan kale laga soo qaatiyo fariin cid kale ka timi fariintaynu gudbinaynaa waxa weeye fariin ku salaysan shariicada islaamka fariin ku salaysan diinteena qaaliga ah fariin ku salaysan xaq diintu ay siisay qof walba waxaynu leenahay hooyo gabadhaada ka daa dhibaatada u noqo shariicada islaamka samee waxa shariicadu ku ogoshahay oo aynad gabadhaada ka xoreyso inaad jarjarto oo aad googoyso oo aad xubnaheeda taranka wax yeesho waa inay hooyada ku xorowdaa waa inay akhrideeda u tirataa ka fakirtaa dhibaatooyinka faraha badan leh ee ka iman kara waa inay kaashataa culimada dalkeena ee aqoonta iyo xeesha dheer u leh shariicada islaamka way wax ka barataa waayo aqoon la'aantu waa iftiin la'aan waxyaabaha dhibaatooyinka faraha badan la qaar kood inoo keena waxa waa aqoon la'aan weeyaan inay diinteena iyo shariicada aad u barana mid waa taas
oo waxaan u soo jeedinayaa haweenka oo iyagu ah kuwa u xogogaalka ah habka iyo hanaanka ay u dhacdo dhibaatada jariimada ah baaqna waxaan u jeedinayaa dhalinyarada waqtiga guurka ku jirta ama ragga damac kama dhamaade waa kuwa 3 iyo 4 iyo kolba waxay doonaan isku keenayeen ragga laftooda wixii ina raga ha yaraada ha weynaado ayaa baaq u jeedinaya waxaan leeyahay dhiiri geliya oo aad ugu dadaala in la joojiyo una ololeeya in la joojiyo gudniinka jariimada leh ee gabdhaha idinka laftiinuna idinkoo ixtiraamaya shariicada islaamka caafimaadka gabadha nin waliba wuxuu jecel yahay inuu guursado gabadh caafimaad qabta oo dhan walba ka fayow nin waliba wuxuu doonayaa inuu helo ilmo caafimaad qaba oo wanaagsan laakiin inta dumar umul arooraysa inta lagu leeyahay way isku go'een inta lagu leeyahay way isku furmeen inta lagu leeyahay way dhali waayeen kolba ka digar rogonaysaan kolba mid kale ka daba keenaysaan caafimaad darrada gudniinku uu ku keenay qayb weyn ay ka qaadataa marka hadaynu rabno inaynu helo guri caafimaad qaba iyo ubad caafimaad qaba waa in raggu ka fogaadaan iyaguna in ay u hanqaltaagaan gabadh maxaan ku dhaday dhibaatooyinka lagu sameeyay waa inay dhaafaan fikradii ahayd cabdi barog joqmatahay waa inaynu ka gudbnaataa waa inaynu u gudbnaa gabadh caafimaad qabta guri caafimaad qaba iyo ilmo caafimaad qaba oo farxad ku wada nool culimada diinta culimadeena waa weyn diinta iyo kuweena yaryar ay noo soo koraya maanta dadkeenu aad bay shariicada islaamka u barteen rag iyo dumarba inkastoo dumarka muxaadarooyinka iyo ka hadalka arrimaha diintu aad ugu yar yahay oo raggu kaga badan yihiin haddana maanta rag baynu haysanaa tiro ka badan oo fara badan oo mutacalimiina oo cilmigii diintana aad u bartay iyagana waxaanu ka codsanaynaa inay kaalin mugla ka qaataan wax ka qabashada dhibaatadan gudniinku gabdhaha uu ku hayo oo dadka u bayaamiyaan shariicada islaamku waxay ka qabto haddii kale maalin kale ayaa ilaahay kala xisaabtami doonaa cilmi ay yaqaanaan oo shariicadii islaamka ay ummadoodii ka hagradeen ummadoodina wax jahli iyo aqoon darro u geynayso ummadina ay ku jahwareersan tahay dhibaatadaas qayb ha ka noqoninaba la culimada waxaan jecelahay inay ku soo dabaashaan ummadda shariicada islaamka waxaan jecelahay inay si dhab ah oo maxaan ku dhaday furfuran oo qeexaysa oo maxaan ku dadku fahmi karaan inay uga warantaan shariicada islaamka waxay ka qabto gudniinka jariimada ah ee hablaha reer Soomaaliland lagu sameeyo waxaan idinku baaqayaa intiina halkan joogta iyo intay codkaygaba media ka maqlaysa inaynu iska dhaafno oo aynu suulino dhaqan kasta oo waxyeello leh oo caafimaad waxyeelaya oo arrimaha bulshada waxyeelaya oo waliba shariicada islaamkuna aanay ogoleen taasaan idin soo jeedinayaa idinkana waxaan idin ka codsanayaa halkan fadhidaan iyo kulankan aan arrinta ku dhamaanin inay noqoto mid bulshada ka timaadeen kula noqotaan maxaan ku leedahay bulshada wuxuu sheegtaan arrintaas ay noqoto mid aynu ka midho dhalino waqti bay qaadanaysaa laakiin waa inaynu wadada dheer iyo waqtiga dheer waa inaynu nafteena u hurnaa in maxaan ku dhahday waqtigeena u hurnaa ka shaqaynaa inagoo kaashanayna cid kasta oo bulshadeenu u dhagan ugu shaqeeyay dhakhaatiirta caafimaadka iyo hadii ay tahay maxaan ku leeyahay culimada diinkaba inaynu iska kaashano qolada caafimaadka laftooda waxaan leeyahay waa in aad uga feejignaataan xarumaha caafimaadka in ay ka dhacaan arrimaha gudniinka gabdhaha lagu sameeyo waa inay dib u joojisaan oo maxaa ku leeyahay ka hawlgashaan arrinta aad baa u mahadsantihiin cid kastoo gacan ka geysata barnaamijkan waxtarka u leh bulshada waan soo dhaweynaynaa cadaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waa idinku taageersanahay waxaanan maxaa ku leeyahay inoo rajaynaynaa culimo iyo bulshada inaynu iska kaashano dhibaatadaas aadna